الرحيم أنيقو مدني مصطفى محمد عمر سيدا كوعد حير نظام كحلبان دولدقان كسوماليدا سيدا كوعد حير نظام كحلباندا دولدقان كسوماليدا قولب كيسا تضباطا حلك مانتا لأي مقعابي oo ah madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida waxaan ku dhaaranayaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشافي فيلم سافلوجس وعاوة halkan idinku imaaday ama idinla jooga halkan caawa waxaan uga soo jeedinaa hambaliyo shacabweynaha deegaanka Soomaali galbeed ama deegaanka DDS waxaan leenahay hambaliyo waa madaxweynihii 13aad ee soo mara deegaanka Mustafa Maxamed Cumar waxa weeye madaxweynihii 13aad ee soo mara deegaanka waana madaxweynihii labaad ee ku yimaada cod shacab ama baarlamaanka ay soo doorteen markii hore waxay ahayd waxa la naga soo tuuri jiray xagga ay Addis Ababa iga qabo dhab hadda hadhow dib loo qaadan jiray ma ogta laakiin kan waxa weeye shacabkiisii baarlamaankii baa doortay cod aqlabiyadna ku doortay oo baashaalkii iyo hambaliyadii iyo de lagu jiro mid kale meel kasta deegaan kasta oo Soomaali ay degto waa la isaga yimi wuxuu noqon doonaa bal maleenaya madaxweynihii ugu shacbiyada ama de yani ay isugu yimaadaan dadka ugu badan de duubweynta Soomaali meel kasta ka timibaad dhinac kasta ka timaadee waxaanad moodaa inay dhinac yara foorarto oo horta dhinac yara foorto xagga Soomaaliland ma dad culus horta uu ka yimi waxaan maleenayaa waa isku shubashaasita moogtay imika isku shubata Mustafa xataa waa kii xagga iyo moogtay ilaa bilbiro socday marka horta xaggaasa wasiiro badan madaxweyne ku xigeenkii waxaan ku baarlamaankii de rag culus baa ka yimi rag culus ayaa xagga ka yimi aadna waa loo soo dhaweeyay iyaguna de waxa weeye maadaama waxaan maraynayaa ay de cilaaqaad hoose oo fiican baa ka dhaxeeya waxaan maraynayaa waxa kor loo soo maadaama ay xuduud meesha ay xuduud ay tahay oo ay dadku wada degaan oo isku degaan yihiin ay istaleen oo markii hore sawir xun dadku isu qabay dadku waa is aryan jiray dadku waa is dagaalami jiray oo markaa dadku isku xumaa waqtigii hore laakiin hadda waxaad muddo dadkii inay soo jeclaanayaan in la isu soo dhaweynayo in horumarka la isku taageerayo in gacmaha la ishayo dhulka la iska qaadayo marka aad baan ugu farxay maadaama anigu horta waxaan islahaa madaxweynahan DDS hore uma tegin Mustafa Maxamed Cumar xagga iyo Somaliland hore uma tegin ma islahaa laakiin inuu tagay baan ogaaday waqtigii markii dekada berbera la furayay in uu ka qayb galay oo waliba khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysa uu soo jeediyay taas waxay ahayd farxad tan labaadna waxa farxad in isagii haddana loo yimaado maanta oo leeyahay wixii aad na gashatay sidii aad noo sharaftay sidii aad noogu timi ayaa anaguna ku sharafaynaa de muusun baa ka maqnaa maanta Somaliland muusun baa ka maqnaa intii kale waa socotay mar hadday noqotay xusbiyadii oo dhinac kasta ah mar hadday noqotay goolii baarlamaanka hadday noqotay wasiiradii madaxweyne ku xigeenkii oo de madaxweynaha matalan mar hadduu madaxweyne ku xigeenkii maraya de madaxweyne kama maqlan meesha ay ka dhigan tahay marka doorta khudbad macaan baa laga soo jeediyay dhinac kasta taabanaysa waxaa laga hadlay in dadkanu ay yihiin de sawirkii hore laga haystay ee dadka deegaanka dega iyo dadka Somaliland dega inay dad ma ogtahay waqtigii hore isku yaraa dhibaato badan halka ay ka jirto wixii in la saaro oo meesha laga saaro oo dadka ninka dhalinyarada ee jigjiga jooga intuu ka qadeeyo jigjiga oo ka qadeeyo oo ku soo caweeyo Hargeysa oo halka ku soo casheeyo asxaabtiisa kula kulma oo soo noqdo gaarigiisa isagoo wata taas marka imka la rabaa in uu sidoo kale ka Hargeysa jooga jigjiga yimaado maalintii iska joogo fiidkii hadana ugu soo noqdo isagoo nabada Hargeysa ku soo noqdo ama boorama ama berbera meesha ka yimaada ama ilaa iyo laaska ilaa iyo sanaagba muhiimadu waxay tahay horta dadku taamirka hore ma fahansaneen oo qof kastaaba intaydan anaa leh intan anaa dega dhibaata ka taagnay marka maadaama adduunkii maalin kasta imku wax sii bedelayo dadka uu sii baxayo waxyaabo badan la arkayo
dee markaad adigii oo Soomaaliya oo dad isku luuqad tihiin waa sii daayay adigu warkaaga wada marka waxa weeye horta dadka Soomaalidu maadaama ay dad tahay ay hal waxaan malaynayaa hal oday iyo hal islaan iyo oday bay ka soo wada jeedaan dee waxba meelaha kale gal carab iyo meelaha kale la gal laakiin dadkan waa dad leeyo kala muuq bay noqon lahaayeen kala midab bay noqon lahaayeen kala waxay noqon lahaayeen luuqaday noqon lahaayeen haday meel kale ka soo jeedaan marka dadkanu markii hore qof kastaaba meeshiisa yar buu xurtu ku haystay yaan laga soo gelina ana iskale laakiin hadda waa furmaysaa waa la isdhexgelayaa waxa weeye qofka dhalinyarada ee ka soo jeeda deegaanka DDS meeshuu doono ayuu marayaa kan kale ka soo jeeda Somaliland waxa weeye sidoo kale meeshan u imanaya Ethiopia oo Ethiopia laakiin inteenan inaga iskale oo ku baashaalna marka waxa weeye dhalinyartuna dalka waxaan ugu soo jeedin dhalinyarta waxa u dan ah maanta inay noloshooda inta ay maxay ahaydee dhalinyarnimada ku jiraan yade inta de ubadkooda baad ay maxay ahaydee ba marka mustaqbalka ubadkooda eegaan ba in ay ku noolaadaan nabad iyo de warwar la'aan magaalada doonaan raaxo ku tagaan magaalada doonaan dantooda ka soo dhameystaan de wala isdhalay dadku saas isku yahay inuu qof kastaaba danihiisa nabad ku soo dhameysan karo marka qof kasta oo dhalinyaraha inuu isagu ilaashado magaciisa sharaftiisa dadkana dad walaalaha yihiin marka qofka jigjiga yimaada Hargeysa ka yimaada wax lagu sameeyo ama ka yimaada Garowe ama Boosaaso ama Gaalkacyo ama Beledweyne ilaa iyo Koonfurba ilaa Muqdisho si dhaaf dadka xaq qofka ma ka yimaado wajiga qofka jigjiga marka aan imaado waxa qofkaas la soo dhaweeyay ama dadkan ugu yahay ayaan u qaadanaya dadka oo dhan wada yihiin haddii la isxumeeyo qofkan uu xumeeyo waxaan u qaadanayaa dadka meeshaas oo dhan in dad xun yihiin haddii la soo dhaweeyo oo Soomaalnimada lagu soo dhaweeyona waxaan u arkayaa dadkan inay wajiga aan ku arkay inay dadkoo dhan wada yihiin qof xun xataa inuu ku jiro malayn maayo marka sidoo kale adiguna de marka meel kasta tagta sax lagu soo dhaweeyo hal lagu sharafo marka dadkii wanaagsan lagu wanaajinaya dhalinyarta is dhex gasho wanaagooda de waxa weeye waqtigii hore qof soo raaxaystay oo meel kasta ka tegay oo gobol kasta intuu tago dhowr saacadood iskaga nasanayay ama maalin joogayay oo waqtigiisa soo qaatay maanta ayuu maxay ahayd madaxa yani naga gelin waxa weeye marka dad hortay dadkii hore dadkan kala dilay ama odayaashii ama de waxa weeye dadkan dad baa waxaan dhex dhigay anagu waxaan nimi arligoo jiqa ayaan soo galay arligoo jiqa oo dhufays lagu jiro yaa tahay in hebel baa walba ka daa xaaladu bedelan tahay marka xaalada bedelan ninkan wuxuu u eegyahay ninkii horta deesan saan kana intii imika uu soo hayay wixii meesha uu ka saaray jawi degan baa lagu socdaa waa la isdhex gelaya waa la soconaya meeshii la oran jiray wajaale marka xagga Soomaaliya laga yimaado halkaas xogaa caqladeedu way iska xumayd carqalada waa meesha waxba ka jiray laakiin hadda jawi degan baad ku soo maraysaa saan maqlay dadku waa isu talaabaya wala isu tagaya xaggaas laga soo casheynayaba gaariga Hargeysa ku wadanaysa jigjiga waa wax fiican marka saas oo kale ayaa la rabaa inaynu u socono oo wixii carqalada imika wax dhibaataa meesha wixii jirana meesha laga saaro aan saa ku sii socono de halka dad adduunka dub u socda ma jiro oo reefs dub u qaadanaya intana dub u socon lahayn deena dub u socon aan hore u socono madaxweynahana waxa leeyahay hambaliyo horta kun jeer baa la hambalyeynaya madaxweynaha dhamaantii oo hambalyeynayna waxa leenahay madaxweyne noqo ilmaha yar markuu dhasho waxa la noqo kii dadkiisa diintiisa anfaca waa isla intii uun adiguna de waxa weeye madaxweyne dadku waa ku sugayaan diintii waa ku sugaysaa oo dadka maxay hayday qudhood waa waqti xun baa lagu jiraa in maxay xagga diinta dadka lagu soo jeediyo dalkiina waa ku sugayaa dadkiina dad badan oo biyo la'aan ah ayaa jira xagga ceelasha iyo biyaha iyo caafimaadka iyo in xagga la eego madaxweyntii hore waxaad ahayd baan leenahay kumeel gaad waxaad ahayd maxay ahayd tijaab ahaan baa anaga noo ahayd adiguna de waqtigaas oo inaad de waqtiga aad ku sii sugto waqtiga lagu dooranayo de natustana waxa tahay waana lagu doortay ummadii waa ku dooratay baarlamaanku waa ku kacay baarlamaankuna waa codka shacabka sida baarlamaanku ku doorteen
ayuunbay shacabkuna ku arkaan. marka insha allah 5 sano ee soo socda meeshaas isbedel weyn, maadaama aad waqtigii yaraa imika aad haysay isbedel weyn meeshii aan ka dareemay oo dadkii ka dareemay oo idaacadihii meeshii free noqotay oo TV kasta hadlayo oo meeshii wareegay kasta imanayo oo de wax kasta oo ka jira la soo deynayo way ka xidhnay hal TV ma ka bixi jiray markii hore. marka meeshii imika sidii hore aad bay uga fiican tahay, halkaas oo 5 sano oo dambe laga sii socdaan haddii Ilaahayna gaarsiiyo. waa meesha aan u soconay oo hor socodkeen u soconay xagga caafimaadka, xagga dadkana waxa fiican marka dadka dawlad la dhisayo, dad la dhisayo, dal la dhisayo, dadkan in xagga maskaxda laga dhisaa fiican. borto ugu muhiimsan waa taa, dadkan in xagga maskaxda laga dhiso oo dadkan inaanay sharciga u hoggaansamaan, inaanay cid wax yeeli karin, in ciddii wax ku samaysa ay dacweyn karaan, in aanay qof dambiilaha xataa dambiile aanu ahayn ilaa inta maxkamadda kusoo cadaynayso. waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabo aynu u baahannahay. hadal iyo dhamaan hadalka marka biyo waxa la yidhi gororo meel gudan bay isugu ururaan. ummadaas oo dhan waxay u timi jigjiga hambalyada madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaali Galbeed ama DDS. waxaan leenahay intay dadkaas oo dhan u socdaan ee madaxdaas u socoto ayaa anaguna u socnaa. waxaan rabnaa waa hambalyo aan leenahay. 5 sano soo socdaan waxaan hiigsanaynaa way halka heestaas way dambaynaysaa. xagga damaanka ka dhufanaya 5 haddii Ilaahayna gaarsiiyo 5 sano markay dhamaato ayaan heestaa haddii Ilaahay ka dhigo ku dhufan doona dambe. waxaan kaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.